KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay Allah leedahay anku sheege shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxaysi war maanta waa maalintii shaqaalaha adduunka idinku ma jin baa u shaqaysaan war una baalgamuunda hotmail.com dadyawa ay inshaqeeyana haryadaha maalinta shaqaalaha adduunka waa la xusaaho waa aragnaahe maalinta baagamuudada adduunyada xaq loo xusi waayo waxay halaysa war shaqada sharafaa ku jirto loo xusayaaye maxaa baagamuuda karaamaha hoyloodo loo xusaa war wasiirkii warfaafinta Soomaaliya ahna bilkiilaha radio risala ayaa maanta shaqadii ka tagay warnimayo maalintii dhawata markii abwaan gura sida degdega xilka looga qaadayay adigu wasiirka warfaafintu waxay markaasuu ku yiri guuro inaan xilka ka qaadaan la amray la soco markaasuu ku yiri guure hagaag waajibkaaga gudo waxaad iga dambaysaaba waa tayrta maanta adigu bay idaacad waa leedahay waraad abwaan guura ma qumay baa isagu wariyaasan afku leebli iyo ilka leebli ma dheegi jarne ka qaad guura shaqada war maxaa looga qaadayaa war idaacada kulmi ay sii daasay looga qaaday war mooshiidin shaqa afarsan inoo dareerta lanka talagalay la masina nyaanyo ku qobadayn ay fade kaasaadowna war idaacada kulmi ma maamulo guuraniyo aryaadaha shirkii dawladda weyn iyo dawladihii yaryaraay ee duriyadeeda ahaa iyo garoowe loogu diyaarshay dib miyay u dhigeen dawlada badana waana dadaal yara war dawlad goboleedyada madaxweynaha shirkii amniga ugu yeeray waana ka diideen ma ayaga garoowe ugu yeeru haddana ka yeelaya war dawladnimada meeli maamul ee maslaxadiya ka aragda seedasa war Axmed Madoobe dalkii daraska ay ahaayeen ee Kenya wali jooga ee shirka garoowe wax kuma laha miya asaga aryaadaha anigu Axmed Madoobe war ka mahaye xaafmu gowgaalkacyo taga wuxuu yiri dadka iyo dalkuba xaalad adagay ku jiraan wardi saalixiin ha loo akhriyo bunaha loo dubo hana loo hadiyeeyo ha loo duceeyo ka wadiyaahe warnimiya wardi saalixiin dadka ridmadiyaan hadiyay jiri ama la bilaaw inoo hang noolin hadiyay waryaalahan war ma haysaane dawladii Jamhuuriyadda Soomaaliland soddon islaamood oo ka banaan bahayay arurtoodii oo ka tahriibtay in la soo celiyo ayay xabsiga ku gurto imika islaamiga xabsiga liinta ku cabayaan war sidaas maahine xidin ka tirsan xisbiga wadani waayo maanta wax hargeysa lagu xiray war Soomaaliland war kama haysaane gobolladii xaaladda degdega ay gelisay ayaa ciidamo dheeraad la geeyay warniyo wax degdeg la geliyay adaa ku raaniyo qaylad igu dish war madaxweyne farmaajo wuxuu la kulmaa leeyahay gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare wuxuuna ka codsaday inay wada shaqayntii soo celiyaan hindisa sharciyeedyada hor yaal golayaashana ay dardar geliyaan aryaadaha madaxweynuhu lamada gudoomiyoon wada shaqayn muddo u dhex joogay xaw u maslaxay waayo hadda mugay xaajada kululaatamiyo ku soo baraarugay war caanada atay dabadood la qabay daatay dabadood la qabay waryaada war ma haysaane maxkamadda Puntland hadda ka hor nin ay dil toogasho ku xukuntay ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya maanta fasaxday war kama hayside ninka waxa lagu xukumay inuusan 2 sano xamar ka bixin 5 sanana inay ciidanku dhaqdhaqaaqiisa la socdaan asbuuc kastana mar inuu si dhiid iska soo diiwaan geliyo war xukunkan xukun ugu cusub waaye xagee laga soo dilish aryaadaha idaacada kulmiye bariga waxay sameeyay tartanka isku aadka jadwalkii bisha Ramadaan war ma haysaane nin Soomaali Mareykan oo booliska Mareykan kamid aha ayaa naag cadaan dilay war meelisanka faylatima ma aragnan meel bisan seetan dad leeyka dilaasana war Soomaalida way gacan fududey aamus hadda waa xiran hawlina lama xukumin warnimayo war ma haysaane waxa la yiri 5 sargaal oo ka tirsan al-shabaab ayaa 24 saac gudahood 3 gobol oo Soomaali
soomaaliya ka mid iska soo dhiibtay war maduurka ku kulaaday ama duqaynta ku badatay war waxaa la yidhi dadaan diinta eebbiya sharciga diiday odhanaynin daacadna u ahaynoo ficliyan dabamaraynaya dusdus iyo khayaanana wadiyo been wax lagu doono oo daaya laga weysan yahay soo dembigu maaha ilaahow raxmaanow dembuwaaba galnay ihtiraafsannaa dukum daakum ninku weelo adi daa'in war ma noo ducaysa muse waana habaarta warnimayo waxaa la yidhi cudur galay magaalada ninkii baadiyo u raadshay oo gubaya dhabar caafimaad looga socon waayey asagaa xanuunsana ku koob yaanan sii badin asagaa xanuunsana ku koob yaanan sii badin aad ka ilaawda war taliyo ciidan haddii lagaa dhigi lahay amniga dhagaxaanaad ka raadin laheyd war ma haysaane ciidanka milatariga soomaaliya waxay la wareegeen beriire war tumungoora gobseen waan ha ka taba jireen hata beeluu hoba beri hanka bahana war yaaya maxaad u murantaan war muranka iska daay war muranka mana dalka waa la difaac war muranka ragaa biishade war yaaya soo war soo Allah idin siiya